sanadkan kiisa xiga socodkeena dheeraay ee maanta aan ku soo marnay magaalada Muqdisho waxaan ku soo gabagabeynaynaa taalada danjirka dahsoon oo u qalmata in lagu xasuusto maalinta xurriyadda Soomaaliya waxaa mar walba xusuus mudan dadkii dalka naf iyo maal u soo horay waxaana xusid gooni ah mudan dadkii aan lahayn magacyadooda ee aan ku dadaalay aan ka dadaal yareen kubii la yaqaanay runtii waa arrin murugo leh in aan hayn dadkaas magacyadooda waxaase ammaan ugu filan in ay qaataan hal magac oo aad iyo aad u qiimo badan oona ka weyn magacyada kale kaasoo ah daljirka dahsoon oo magacoodu yahay inay tahay daljir ka dahsoon aragtida caadiga ah ee ku daabacan damiirka wadaniyiinta waxaanu leenahay daljirkiyow dariiqaagii ma duugmin ee daruuf baana dhigtay halkan run ahaantii haddii ay isleeyihiin kuwii qariyey lumiyey xaday magacyada halgamayaasha Soomaaliyeed yaan la xasuusan ma dhicin taas oo waxa ay heleen nasiib u heleen magac ka weyn oo ah daljirka dahsoon annagoo ka faa'iideysanayno munaasabadan maanta aan u sameynay xurriyadda Soomaaliya haddaynu nahay dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay Youth for Somalia waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed nabad iyo horumar inay ka shaqeeyaan una soo jeestaan wax u qabashada iyo badbaadinta dadkooda munaasabadan annagoo ka faa'iideysanayna waxaan fariin u direynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwan marxaladda dalka uu marayo waxaanu leenahay dalka Allah nooga dhiga mid nabad ah nabadiisana Allah noo waariyo dhalinyarada Soomaaliyeed waa mustaqbalka dalka waana mustaqbalka dadka waana mustaqbalka wadanka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan inay xushmeeyaan ixtiraamaan xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed waan ognahay inay jiraan dhibaatooyin badan haddana waa laga maarmaan in mar allaala iyo mar kasta la xushmeeyo aragtida dhalinyarada waayo aragtida dhalinyaradu waxa ay ka mid tahay furaha ugu aasaasan furaha dhibaatooyinka ka jira dalka waxaan ugu baaqaynaa maadaama wadanku uu ku wajahayaa marxalad kala guur ah maamulka xiga ama loo dooran doono waxaan ka codsanaynaa aan ka rajaynaynaa inay kor u qaadaan sare u qaadaan xuquuqda iyo dhowridda xuquuqda guud ee shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo mudan runtii in la xushmeeyo lana ixtiraamo runtii ma ahan dhalinyaro dambiile dambiilinimadu waa dambi sameyn ee ma ahan da'da waxaan ugu baaqaynaa dhammaan inaan loo garaanin dhalinyaradu inay yihiin dambiilo waxa dambiile ah da' kasta qofka wuxuu jiro ee dambiga geystaa annagoo ka faa'iideysanayno munaasabadan qaaliga ah waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay xushmeeyaan xuquuqda guud ee asaasiga ee wadaniyiinta dhaxdoodana ay is ixtiraamaan guud ahaan waxaan halkan ku soo koobaynaa munaasabadeeni aan maanta u dhignay socodkii dheeraan ku soo marnay taaladii Imaam Axmed Gure Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ururkii SYL iyo maamadii Xaawataako haddana aynu joogno daljirka dahsoon runtii waxa aan sameynay waxaan filaynaa inay tahay wax ku dayasho mudan ee aan u bilownay dhalinyarada Soomaaliyeed inay muujiyaan wanaajiyaan xusaan dadkii u soo halgamay wadankooda waxa ay ka mid tahay aasaaska soo nooleynta iyo kor u qaadida wadaniyada Youth for Somalia waa urur dhalinyaro ah waxa uu ka shaqeeyaa soo nooleynta dareenka wadaniyada ee duugmay waan rajaynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku dhiiradaan wax u qabashada dalkooda hooy waana mahadsantihiin Leila sidoo kale socdaalkooda waxay ka soo bilaabeen halka taalada